السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga Ramadaan mubaarak meel walba adduunka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijyadeena caafimaadka indhaha hadduu ilaa raado waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah caadka indhaha ku sameysma waxyaabaha sababa ayaan ka hadlaynaa hore waxaan ugu soo hadalnay laba video waxaan kaga soo hadalnay caadka indhaha anaga u kala qaadna dadka ilmaha yaryar iyo dadka waaweynka ilmaha yaryar waxyaabaha ku keena inuu ku sameysmo calaamadaha lagu garto sidii lagu daaweyn lahaa wax dhan waan kaga soo hadalnay sidoo kale waxaan kale kusoo hadalnay dadka waaweynka caadka indhaha ku sameysma waxyaabaha ku keena iyagana calaamadaha lagu daaweyn lahaa haddii caadkaasi qofkan laga daaweyn waxyaabaha ku dhacaya iyo sidii lagu daaweyn lahaa waxaas dhan waan kaga soo hadalnay maanta hadduu ilaa raado waxaan ka hadlaynaa waxaan focus ka saaraynaa 4 wax ee sababa caadka indhaha ku sameysma ilmaha yaryar iyo dadka waaweynka labadaba waan ka hadlaynaa hadduu ilaa raado 4 wax ayaan ka hadlaynaa midda koowaad caadka indhaha waa lagu dhashaa waxyaabaha ugu badan ee sababo ilmaha way ku dhashaan noocaasi oo qofka markuu ilmaha markuu dhasho ilaa bisha koowaad ilaa bisha labaad waa lagu arkayaa hal il ayuu caadkaas ku sameysmi karaa labada ilbo ku sameysmaa labada ilbo caadka indhaha way ku sameysmaa cunuga markii indhaha laga nadiifiyo kadib caadkaasi wuu soo muuqanaya marka caadkaasi oo cunuga markuu dhasho kadib la arkayo ilaa mataqaanaa caadkaas soo muuqanaya waxaa loo yaqaanaa congenital cataract caadkaas waa lagu dhashaa midda labaad ee ugu badan ee sababto caadka indhaha inuu ku sameysmo waa jugta traumatic cataract ayaa loo yaqaanaa ani jug oo madax ku dhaco jug kastoo madax kasoo gaaro qofka ama shil gaari ha galo ama mataqaana madax jug ha kasoo gaarto sidoo kale ish inay jug kasoo gaarto waxyaabahaas dhan waxay sababayaan caadka indhaha inuu ku sameysmo midda saddexaad ee ugu badan ee mataqaanaa dadka inta badan lagu arko waxyaabahaas sababa caadka indhaha da ayaa keenta qofka normalka markuu gaaro mataqaanaa above 60 markuu 50 sano markuu ka weynaado 60 sano markuu ka weynaado waxyaabaha waxa ku bilaabmayo caad inuu indhihiisa soo bilaabmo oo cawar uu dareemo ilaa qofka uu mataqaanaa 70 ka soo muuqdo 70 markii la gaaro age-kaasi ayuu mataqaanaa full uu soo noqonaya sidoo kale waxyaabaha ugu badan ee sababa inta badan dadkan ay ku baraarugsan mid ugu dambeyso waa cimilada environmentalka qoraxda cimilada markaan ka hadlayno waa qoraxda meelaha dadka qabowga ku nool normalka laguma arko laakiin meelaha aad u kulul caadka indhaha qofka uu ku sameysmaya qoraxda waa waxyaabaha ugu badan ee sababa mataqaanaa caadka indhaha markii laga soo tago inuu qofka ku dhasho inuu qofka mataqaanaa da kusoo gaaro waa waxyaabaha ugu badan ee sababa caad inuu indhaha kaga sameysmo soo marka waxaa qofka loo baahan yahay inuu okiyaalo ka xirto oo sunglasses ah soo caadkaas qofka usoo dedejin waqtigiisa video waxaan kaga hadlaynay 4 wax oo sababa caadka indhaha wixii su'aal dhanka commentina warba idin kaga mahad celinayaa daawashada videogan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.